dadka qubuurta ku ictikaafa waa bidcada la sheegayo qolada ugu sarraysa bal waxay u badan yihiin dad aan diin lahayn maxaa yeelay allah subxaanahu wa tacaala keliga ayaa la caabudaa cid kale oo lala caabudi karana ma lahan dadka qubuurta ku dawaafa oo u xajiya meelaha qubuurta ku taallo oo yidhaahda haddii qabri hebel intaasoo jeer lagu dawaafo waa xaj ama waa xajulmasaakiin iyo dadka u aaminsan dadka qubuurta ku jira inay wax qabtaan amay wax gooyaan amay wax tari karaan dadkaas ayuga waxa ay la yimideen shirki weeyaan waxayna ku tirtiyeen mushrikiinta haddaysan ficilkaa ka tegin ma ahan arrintooda bidca iyo waxaas oo iskala saramartay waxay soo gelayaan qolada alla yidhi subxaanahu wa tacaala waidaa xushira annaasu kanuu lahum acdaan wa kanuu bicibaadati lkaafiriin way ku kufrinayaan berrita dadkan ay leeyihiin waxbay qabanayaan ama salaada la dul tegayo qubuurta laguma dul dukan karo xaggooda looma dukan karo oo lalama qaabili karo salaada laa tusalluu ila alqubuur walaa tajlisuu calayha adilo saxiixa nabiga ka sugan xaggooda ha u dukanina hana ku dul fadhiisanina midda kale xadiisu sugantay nabigu waxau sheegay sala allahu alayh wasalam makhluuqa ilaahay dadka ugu khayrka daran inay laba qola yihiin qolada ugu horraysa waa qolada dhisi doonta qubuurta yattakiduuna alqubuura masaajid qolada labaadna waa qolada qiyaamadu ku dhici doonta ayagoo axyaa oo nool ayana inta iimaankana waa laga sii qaadaa nafta sida adilo saxiixa caddaynayso marka dadkaa qubuurta dhisaya oo derbiyada yacni ku wareejinaya la marinayo nuuriyadda iyo dadkaa qubuurta ku dawaafaya dadkaa sardiga ka gelaya dadkaa qubuurta xiriirka noocaasa la leh haddaysan ka tooba keenin oysan ka bixin dadkaa shirkiga lagu xukumayo ay ku jiraan maxaa dadka loo gaalaysiinaya iyo maxaa xagga looga dhacaya maaye waxaa meeshan yaalla arrin aad u adag rasuulka maanta uu geeriyoonayay dhowr maalmood ka hor 5 maalmood ba riwaayadaha qaar sheegayaan waxa uu lacnaday yuhuud iyo nasaaro qubuurta ambiyadooda iyo saalixiinta ayay masaajid ka dhigteen caaisha waxay tidhi rasuulku waxau ka digayey waxa yuhuud iyo nasaaro sameeyeen waa waxa maanta ummaddeenay samaynayso waa waxa culimmadeenni ay la wada huwan yihiin oy saa ku wadaan oo ay u haystaan arrintu inay sidaa tahay oy ku leeyihin awliyadii lagu xadgudbay awliyadii xagga laga dhacay yaa ka awliyaysanay abubakar iyo cumar iyo ragga marka laga soo tago khulafada qaybaheeda kale iyo ragga jannada loogu bishaareeyey qubuurtoodii maalay ku taalla lama yaqaan say u badan tahay maxaa qubuurtooda inta loo raadiya loo dhisi waayo ama nabigu dhihi waayo waxaa laga qabto ambiyada ilaahay oo hore u dhimatase qubuurtoodii maxaa loo dhisi waaye qabri in la dhiso la dul fadhiyo hadday faa'iido leedahay waxay muslimiintu yidhaahdaan sida xadiis bukhaari ku sugan caddaynayo nabi muuse wuxuu alla weydiistay baytulmaqdes meel u dhow in nafta looga qaado maxa u odhan waayaa la yidhi baytulmaqdes gudihiisaba waxau ka baqla ayay odhanayaan muslimiinta yani shuraaxda muxadisiinta in qabrigiisa inta loo aqoonsado la dul fadhiyo sidaa darteed meel ambiyada alla ku dugan yahin lama yaqaano rasuulkana un baa laga garanaya sala allahu alay wasalam maxaa haddii loo baahan yahay qabri in ilaah laga dhigto noocaa weeye midda kale adduunkan goormaa gaalnimo ugu horraysay maantii musawir la sameeyey qabrina la dhisay gaalnimada dadkii ay ku bilaabato kuwii ugu horreeyey maxay ahaayeen niman culamaa sulaxaa wa qaaluu laa tadarunna aalihatakum walaa tadarunna waddan walaa suwacan walaa yaquuta wayacuuqa wanasra sida bukhaari ku sugan waa 5 nin oo culamaa oo wanaagsan magacyadood oo sidii loo dul fadhiyo maantii dambe la yidhi ayuga ilaahay ah qubuurta la dhisayaa noocaa weeye ninka qabri ku dawaafay waxau diin leeya ma haysto ma jiraan waxauna beeniyey si caddaana u inkiray aayaddow alla yidhi iyaaka nacbud wa iyaaka nastaciin adiga keligaa baan ku caabudaynaa kaana kaalma dalbaynaa dadka qubuurta ku dawaafow rabbigiin ka cabsada dadka qubuurta odhanaya qubuurta waxbay galaan oo rabbigiin ka cabsada war nin asaga islaanta u qabay la dumaalay oo asaga abaar cunay maxuu kuu qaban karaa ninka kan adiga odhanaya awliyaday soo kaco wax qabee maxuu u dhinto u isu celi waaye oo adduunka u joogi leeyahay nin geerida jecel ma jireen ma noolaado haye nin soomaalidu waxay tidhahdaa nin dhintay kobihiisa ka roon wau garanayaa mahmahyada noocaasa waxay dhahaan mahmahyadaas waa jirtaa kobihiisaa dhaama maxaa yeele kobihi baa jooga maxaad ka doontay dib wax weydiisanaysaa haye maxaad ka doontay midda kale haddaad ay run tahay nimanka la sheegayo oo culimmada oo dhintay ayagu way dhinteen inay sidaa sheegaysaan wax u qaban karaan 4 nin baa xamar ku dugan baa nala ku yidhi oo halaqa iyo badda iyo cudurka ka ilaalisa xabadda jirdhi iyo ay mooryaan ka wado ma naga qabtaan
hadday badda naga hayaan ayagu badweynta hindiya ninka celiyey xabadda waa naga celin karaa hadday run sheegaysaan haye war ilahay ka xishooda midda kale qubuurta meelaha qaar ku taala sida biyooli oo kale waata la yidhahdo waa boqolka awliyada cirka iyo dhulka ayuu kala hayaa waxyaalo weyn baa jira lugta uu ku fidiya meelaha qaar ama mid marka ku yaalla maraakiibta badaha maraysa dhiigga dawlatiga lugta ku toosiyaa haddau lugta ku toosi karo ma naga toosiya dalkaan qarrima balaayada nagu dhacday maalin walba u tagtaane ordaha sardi ka soo gala waxaa qabteen nimankaaniyo u taga awa dadka waxaan sheegayay ilaahayna ka xishooda dadka amwaadda oo dhinta u duceeya allah u naxariista ilaahda haddii waalidkaagu ku jira waalidkaaga waktiga ilaahay ku siiya sadaqa u bixi adoon wakti iyo beri iyo bil midna u yeelayn waxa kalood wadan joojiya awliyada kaan iyo xagga oo ilaahay awliye waaleeya oo ninka inkiraa diinta waa beeniyey awliyada allana rag iyo dumar uma qaybsanto axadkii laga helo laba tilmaamood waa weli ilaahay aladiina aamanuu wa kaanuu yattaquun qofka iimaan run ah iyo cabsika laga helay oon weligii xaaraan iyo xaqdarala iman oo wanaagga ku dadaalay axadkaas waa weli ilaahay midda kale dumarkaan u sheegaya arrintaasi ha ogaadeene dumarkao aad baa laydin khiyaane haween awliyaa uma jiraan maxaa awliyada laydinkugu digoon nimanka awliyada looga dhigaa nimanku waa idin sirtaan iska celiya nimanka naaga awliya idinku walma samaysta